السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. my lovely qaraabo meel walba adduunka ka joogtiin ma mahadsantihiin. waa walaalkiin Cabdi Fataax oo idin leh mar kale kusoo dhawaada insha Allah barnaamijkeeni new hair lotion damroolkeeda maasha Allah tabaarakallah. waa idin fiican aniga maasha Allah. maanta dhii 34 maalin ay tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin. kuley waa kaya shalisaan markaa ahay iyo maanta farqi weyn oo dhexeey ay kala duwan tahay fahanta alxamdulillaah. soo marka 34 maalmood haddii ay bisaan nolosheeda isugu bedeshay, wejigeyga saan isugu bedelay, madaxeyga saan isugu bedelay. marka insha Allah biidinillah waa rajeynayaa 9 maalmood markay marayso in saan ay kasii darnaa arki doontiin insha Allah haddii la yiraahdo. marka waxaan rabay inaan idinla wadaago kaliya baryahan waxaa soo batay oo dadka isoo weydiinayaan inta badan darmaroolka fitamiin ma lagu isticmaali karaa saliidda marka la isticmaalayo heer fitamiin oo kaniini tinta ah ma la isticmaali karaa. horta mid ugu weligaa lah sideedaba fitamiin macnihiis muxuu yahay? fitamiin macnihiisa wax waaye wax loo baahan yahay noocoo doona ha noqdo, ama ha noqdo madaxa oo tinta ha noqdo, ama ha noqdo fitamiin D, ama ha noqdo fitamiin B12, fitamiin 6, waxaasoo dhan ay fitamiin noocoo doona ha noqdo, fitamiin C ha noqdo. fitamiin oo dhan sidiisaba wax dhiba ma keeno, laanno jirkaaga markuu u baahan yahay kaniiniga markaa isticmaashid waa dareemaysaa inuu jirkaaga u baahan yahay. markuuse jirkaaga u baahneenna kaniiniga markaa isticmaashid dhowr mar kaniiniga dhadhankiisa ku diidaa, laanno it means waxay noqonaysaa fitamiinka aan isticmaalaysa jirkaaga uma baahna, mid kale u baahan yahay. soo marka kaniini fitamiina sidiisa wax ma dhibo. kan hadda tinta oo inta badan Soomaalida inta badan ay isticmaalayaan kuley asagoo kaniini caadi oo gasac ku jirana wuu jiraa, asagoo baakad ku jirana wuu jiraa. insha Allah sawirkiisa waa idinla soo share garay doonaa meesha kusoo qora haddii ilaa yiraahdo. wuu isticmaali karaa qofka, maxaa yeele waa faa'iido ku dar. qofka markuu faa'iido ku dar isticmaalayana wax dhib ma ka imaanayo, laanno waa double faa'iida haysataa. kaniiniga wuu kusii saacidaya leh, wax dhib ma keenayo. Soomaalideena qurbaha joogto 90% wax dhibkan oo keenaa waxay tahayba waxyaabihii naturalka oo shalay aan isticmaali jirnay markaa waddankeena joognay, markaa meelahan imaana qurbaha waan weynay. sidaas darteed waa u baahannahay saliid. madaxa wuu u baahan yahay saliidoo u baahan yahay saliid oo wuxuu u baahan yahay natural. fitamiinka u baahan tahay fitamiin wuu u baahan yahay fitamiin u baahan yahay fitamiinka kii timaha u baahan yahay kii indhaha u baahan tahay. waxaa u baahan tahay fitamiin D-ga caadiga oo laana markaa qurbahan joogno fitamiin D ma isticmaalno, qorax ma helno. fitamiin D-gaas waa u baahannahay, jirkeena u baahan, waxaasoo dhan waa u baahannahay. marka fitamiinaadka dadka isoo weydiinayo kaniini fitamiin no problem, wax dhiba ma keena, waa isticmaali kartaa. okay, marka ha ku mashquulin kaniini fitamiin waa la isticmaali karaa ma waxin karaa yaa kaniini waa la isticmaali kartaa. ani ilaa hadda kaniini fitamiin ma isticmaalin, laakiin insha Allah I hope 6 bilood 30 maalmood kale markaan isticmaalo 60 cisho kadib markaas insha Allah aan fiirina haddii aan u baahanahay inaan isticmaalo waan isticmaalaa, haddii aan u baahneenna ma u baahni insha Allah. laakiin I hope insha Allah haddaan isticmaala haddeer naftirkeeda wax ma iga dhibaa inuu wax ii faa'iideey maayna. soo marka hadda ma isticmaalo, ani wax kaniini ma isticmaalo, laakiin qofkii raba inuu isticmaalo extra wuu isticmaali karaa, laanno waa faa'iido kusii darsatay. saliiddan way ku saacidaysaa, waxay kugu saacidaysaa inay madaxa tinta soo celiso. kaniini fitamiinka ah markaa isticmaashidna wuxuu kugu saacidaa asagana tintaada inay to be strong ay noqotay, si adkaato soona baxdo, si fiican u soo baxdo. soo marka qof diidayo ma jiro, faa'iido ku darso, waa isticmaali kartaa. I hope aniga naftirka inaan isticmaalo waa laga yaabaa 6 maalmood waa idin leeyahay, laga yaabaa ka soka inaan isticmaalo. laakiin hadda hore ma u qorshaysan inaan kaniini fitamiin isticmaalo, haddana qorshaha ma igugu jirto, laakiin laga yaabee one day inay igu soo dhacdo inaan isticmaalo. laanno haddii faa'iidadiisa ay badan tahay waa u baahanahay inaan isticmaalo, maxaan ku diidaa. laakiin aniga hadda waqti xaadirkaan la joogo kaniini fitamiin ma isticmaalin, laakiin laga yaabay beri inaan isticmaalo. soo marka walaalkay isoo weydiiyayo, dad badan isoo weydiiyaan ma isticmaalaa, ma la isticmaali karaa? yes, kaniini fitamiin oo madaxa waa isticmaali kartaa, isticmaal. damroolka salxaha ma saacidaa? yes of course wuu saacidaa, si fiican u saacidaa. laanno qofka bini'aadamka markuu saliidda bilaabayo 2 alternative oo bilaabaa. qof rabo marka hore inuu madaxiisa caadiga inta tinta leh oo tinta ka dhamaatay inuu soo ceshto rabo, oo markuu tintiisa soo celiyo kadib salxaha haddana uu soo jeesanayo oo salxaha isticmaalayo. iyo qof markii oo wixii bilaababa
ani camal maalintaa bilaabay daamaroolka waa inta ku bilaabay intana waa ku bilaabay leanno ma raba inaa inta iisoo naqato oo salxiyeygan sideeda ay u dheeraadaan oo beri haddana salxiya aan dib u bilaabo leanno is the same time waxaan rabaa anoo kan isticmaalahay inta kanna inaan isticmaalo leanno wixayga ee beri hal mar iisoo wada laabtaan maxaa yeelay tinta markay intaan iisoo noqoto oo salxiyina ay ii dhiman yihiin haddana salxiyi inaan 3 bilood 4 bilood ama 6 bilood kale salxiyi geliya naqane soo marka waqtigeygi aa inta ku dhumiyey kaligeed maxaan ugu dhuminaya madaxayga dhan aan ku dhumin karaa soo marka waqtiga aan gelinaya madaxayga waa inaan madaxayga oo dhan wada geliyaa si madaxaygoo toosan oo saxan oo aan meelna tin ka maqan tahay meelna tin ahayn inuu iisoo wada laabto that's why marka okay maxaa ka dareentay oo isbedelay salxahaaga of course wax weynaa ka dareemay yaani qof walbana waa arkaya ilaa hadda tin caadi ugama jeediin oo tin caadi oo madow sidii tan oo kale inta ah loogama jeedo laakiin madaxayga ina inta ka soo baxda tin anigaa dareemaya leanna waxaan ku dareemayaa markaa qubaysanaayo waa dareemaya hadda saan markay tahay waa dareema saan markaa dhaho waa dareema leanno waxaan u dareemayaa meeshaa marka hore sulub wejigaygan oo kale ahayd laakiin maanta maasha allah saas markaa dhahayo waa ujeedaa inay tin soo baxday ilaa inta weli ujeeda inta madowga ah ka soka xataa tinaa ku taalo meesha madowga wax yar xaadaa ku taataal soo marka waay marka aan u sugayaa ina inta ii soo baxda kadib haddana intaan waqti u gelinaa haddaanba geli karaa soo marka haddaanba geliyaani soo marka walaalkay salax xalayada leh oo ka cabsanayo inuu salxaha kaligood oo sameeyo ama salxaha kaligood oo isticmaalo waa isticmaali kartaa ma fahanta salxaha kaligood haddaa isticmaalaysid weli waxaan kugu waanina insha allah darmarol kan ma u baahnid salxaha kaligood markaa inaa isticmaashid rabto kan ma u baahnid kan hadda ani intaa ku isticmaalaa already ma fahanta waa 0.5 asaga intaa isticmaalaan hadda salxaha dhan ma isku shideeyo marmar inaan geliyo wax yar saasaan ku dhadhawo macquul maadaama oo ka cirbado waaweyn yahay xoogaa yar inaan saacidaad yar uga raadiyo macquul laakiin mostale marka hore sida aan inta ugu isticmaali jiray meeshaan geesaha 0.5 kan u isticmaali jiray muu isticmaala hadda 0.5 ka shaqoo leeyahay shaqadiisana korkaan koro waay isagaan uga shaqeeya maanta okay okay kaas shaqadaas oo ii qabtay kana shaqadan kale oo ii qabanaya maxaa wareer keena waa isku dhamaatay labadeeda darmar walba shaqadooda saasay ku kala qabsadeen عندنا سليدة تركي كران سليد قفك مركو استعمالها لا مر بي فوق سي كرتا ودا غارسي كرتا هذا أردت إن حاجة أقولونان كرتا waxaan kaloo rabaa inaan wax badan dad isugu weydiiyo dhalinyaro dhahayaan indhaha iga gaara qolofa iga ka coysisaan waa baraada indhahaaga ka ilaasho haddaan si kale u ilaashan kari markaa isticmaalaysid saan dheh kadib korkaad ku buufi saysan indhaha kaaga soo gaarin saan dheh ku buufi jag 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 markaas isticmaal leanno indhaha khatar waa inay gaarto maanta ma loogu talagelin indhahada inay gaarto ka ilaaliya ku qoran indhaha ka ilaaliya ku qoran iyo caruurta ka ilaali soo marka waaba lagu sheegay wax lagu sheegay inaa indhahaaga gaarsiisid oo beri indhahaaga damage aa u geersatid adaa isdhaawacay baraada soo marka isku day inaa indhahaaga ka ilaalisid haddii aadan si kale baashi way soo dareeray aa is leedahay oo kale saandha sida hadda ku dhahay oo kale ku buufi madaxana kor saas hor u qaad gaarsii tinta markaa tinta dhex gelisid kadib saan waa dhigi kartaa markaas ma soo dareerayso laakiin koo haddaa inta hadda ku shubo aniga intana ku shubo diriqay soo dheh way soo dareeraya dareerkaas indhaha inuu soo gaaro macquul soo marka indhaha ka ilaali saan dheh ku buufi kadibna saan dheh ama kale marka horeba saan dheh gaarsii meesha ku buufisidbo madaxa markaa gaarsiisid wax soo dareerayo ma leh aan hadda mee qabra ku buufi may soo dareerto laanno meesha aan ku buufiyaba waa gaarsiinaya waa kaay
that's it wax kaa gaarayana ma jiro marka waa isku dhamaatay turki karoon saasaa loogu faa'iidaba mafahante waa ku haystaa aniga alxamdulilah wax badanaa ka faa'iiday dad badan oo soomaalina way ka faa'iideen anigana waa ka faa'iiday alxamdulilah I'm not going Turkey maxaa ka doonaa waaba kanaabe turki karoona haystaa soo marka jaaniskayga waa idiin sheegay 9 maalmood ilaa 120 cisho 4 bilood waa arkaysaa in turki loo baahan yahay inaan loo baahnayn kan turkiga tagay madaxiisa sawiraan kasoo qaadaa anigana madaxayga waa idiin soo sawiraa markaas arkaysi kii fiican insha allah biidin haddii ilaa yidhahdo waa idin salaamaya my love qaraabo meel walba adduunka joogtiin peace love waa idin jeclahay ama ogaan insha allah janaalkeena like haddaa ku cusub tahay subscribe insha allah meeshan igala soco wixii ziyaadaha insha allah whatsappkayga waa kasoo qaban kartaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu